isbitaalada waxay ka mid noqdeen ganacsiga caadiga oo furan yar adarkee ruuxa bad uga dhacday waxa la yiri lugta ilaa waa la gooyaadee waa la gooynaa lugta hore lugtan waa fiican tahay hal kabaadee waa la gooyaadee lugtu waa la kabay way fiican tahay way ord badan isbitaalada inta badan waxa waaye business waay nin walba dhaqaalihiisa gaarka oo eegana anana isbitaalada waxay fiicnaa lahayd ayagoo lacag normal oo macquul oo qofka jeebkiisa laga qaadayo qofka loo fiiriyo si naxariis leh oo leeyahay qofkan lacagta intuu la eegyahay burburkii kadib dalku waxa uu galay xaalado kala duwan xaaladaha ugu badan ee dalku galay waxaa ka mid ahaa dhanka caafimaadka oo aad looga dayrinayay in daawooyinka ka soo gala dalka dabadiisa ay yihiin kuwa aan tayadooda aad loo hubin walow sanadihii ugu dambeeyey bahda caafimaadka in badan samaynayeen dadaallo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa caafimaadkaas isbitaal kasta oo ku yaalla magaalada muqdisho waxaa jiifa boqolaal dad Soomaaliyeed ah waxaa la tilmaamay in isbitaalada ku yaalla muqdisho ay tiradoodu aad u badan tahay haddana tayada caafimaad dalkeena oo aad u hooseeyo khubarada dhinaca caafimaadka ayaa inta badan waxa ay sheegaan in goobaha caafimaad gaar ahaan isbitaalada tirada badan ee ku yaalla muqdisho ay yihiin goobo loo furtay ganacsi ahaan marka loo eego lacagaha xad-dhaafka ah ee isbitaaladu ay ka qaadaan dadka bulshada ku dhaqan caasimadda magaalada muqdisho oo dareenkooda ka hadlay ayaa isbitaalada tirada badan ee ku yaalla caasimadda magaalada muqdisho haddana caafimaadku uu yahay mid aad u hooseeya walow ay jiraan dadaallo ay wadaan bahda caafimaadka ayaa waxay tilmaameen in arrintaasi ay tahay mid u baahan dib u laabasho isla markaana bulshada ay tahay mid mar walba rabta caafimaad tayo leh isbitaalaadkiina tirada ay ka bateen hase ahaatee mooma maadaama tirada kasii bateen qofkan sheegay in aan samaynayn qof miskiina ama danyar aan lagu caawinayn waxaa laga rabaa shayga markii oo sheegay oo saas u bato waxaa laga rabaa in la helo qofkan oo danta yar inuu wax heli karo oo caawimaad uu ka heli karo waa jiraan hal iyo labo isku jira oo la dhihi karo dad bay caawinayaan laakiin lama dhihi karo dhammaantood waxaan hadda soo wada kacban ee dadkay caawinayaan way yar tahay mid waliba waxaa waaye qofku wuu fiirsanaya meesha tag lacag intaas tuur waa tegaysa caggaas tegay intaas tuur dadkan isku mid maahan mid ilaah wax sii midna ilaah wax ma siinin haddaa dhahay diskoon i samey ama saan i samey waxaa laga yaabaa inay si qaldan ay kula hadlaan isbitaala qaar oo ay jirto oo educator ah oo dad wax yaqaana joogaan iyo kuwa waxaa jirta oo uneducated kuwa aan waxba sheegay oo askar oo waxba aan soo barin wasaaradda caafimaadka ayadaa laga rabo marka inay xakamayso oo sheegada ay samayso xakameyn ay la socoto kormeerka ay ku samayso coordinated marka ayada naftirkeeda waxaa laga raba in ay sheegaan isbitaalaad oo ay sameeyaan maadaama shacabkan mas-uuliyadda ay qaadeen hataa ay u sameeyaan meel oo private ah oo free ah wax oo free la ma jiraan anaaba marka qofka laga soo tago anaaba tagaba anaga kula hadlaayo aad tagay barnaamijyo waxaa u tagay oo sheegay ciyaala wade meesha markaa tagay ciyaala geey horta meesha waxaa wax lagu siinaa inay tahay ay sheegay qof aad taqaanid inuu meesha joogo qof aad taqaanid halkaas inuu joogo ama sheegay oo macaamiil aad ku leedahay ama sanadkan qofka meesha joogo inuu ku wato markaas wax lagu siinaa tusaalaanteeda kale marka laga soo tago daawooyinkan oo meesha la geynayo waxaa bixinaya hay'adaha bixiyo daawooyinkan hay'adaha bixiyo waxaa looga talagalay ummaddan masaakiinta inay ku intifaacaan ala siiyo daawooyinkii waxaa arkay meesha lagu tago waxaa lagu leeyahay warqaday qaynay farmashiga tagay daawada ma bataashee waxaa lagu leeyahay farmashiga banaanka gado laga yaabo daawadii meesha taas in meesha la geeyo oo markaas laga raadinayo lacag kale oo dheeriya oo benefit ah marka taas waxaa leeyahay ilaahay ka cabsada waxaan ummad masaakiin ah looga talagalay masaakiinta in lagu daaweeyo ay leeyihiin oo hay'adaha baxsada laga baxsada oo inay saddeq ajir ay ka helaan marka ka hor istaagin ajarada idinkan meesha waxaa ka raadin indallaahi wax u shaqeeya teeda kalena wax ilaahay agtiisa ilaahay idinka siiyo masaakiintan u gargaar wax oo qof hay-ad baxsadan aad isku dayin inaad ka raadsatid ishaga inaad dhaqaalaha ka raadisid wallaahi istaalla bata waxaa waaye wax dan hoogodoba uguma jiraan waayo wax taqatus iyo baroseeb sax haysto naa shahaada sax haysto muhiim ku jiraan cid kasta albaabay iska furanaysa waxay ku leedahay dhaqtar macnaha waa daadiya lagu leeyahay shaaki waa daadiya socotaade dhaqtarka faraha ka xiran baraanta ka hor waxaa xasuustaa yar adarkee ruuxa bad uga dhacday waxa la yiri lugta ilaa waa la gooyaadee waa la gooynaa lugta hore lugtan waa fiican tahay hal kabaadee
waa la gooyay lugti waa la kabay way fiican hadda way ord badan waxa sakra tamarka dhaqaatiirta soo dadka istaalada ku dhimaa aragtay boqolkiiba 90 hal darxumo u dhuntay iyo hal macnaha daawoodin iyo habkan islahayn loo siiyo saasoo macnaha waqtigiisa meesha ku ekay ayaa sabab u noqonaya والله حنونو تو اسك جيران كورالي اسك جيران لكن كل واحد كسب تعدي iyo waxay leeyeen boroseed iyo waa hab loo maray leeyeen qof kasta diima taqana shaaga lagu daawo isla adil soo kaasi naftarkaaga waxa way xaaladaada way si adkaanaysa labadii boos waxa ku yar istaala ku yar dhaxdooda labadii boos isku xigtaba hala istaala labada istaaleen hala istaalaba marka xaqiiqdii waxa way wax aad iyo aad ma taqana shoog dawladda ilaa qaas ku fiiriso wixii sax bulshada u adeegi kara baahidooda dabooli kara إيه متقنا شيء وفسحته رخصيسه أنت كلا ترى متقنا شيء البدل الصورة الله برنا نجعلها هنا مركز شعب الصوماليين ويا وحنا كدن داين هاي ودبات أنا أقرش بحي واحد استبحنا هاي أنا عفمت ساعة أغاتي ساعة وباهدا هذه ظروفها فوق جدا من أنا معناها دولي كريم أيام يشوفوا فديه قرش ولا يقاتي هذا ندي من عند برسيب أولاد هذا داود قلد هذه أنا يلوسيه أسيحان وسطها هل كانت بس يستجيسها تدمر كسكوت جماعة نصيب اللي هذا والله مجال السبتال هذا يكون بتين لوق بدن هاجر لوق بدن هاجر مجال السبتال لقى فرايو هذا هو ميل باتكتو قفك كلية مدوحان قابل السنة هي كليها يوبركا وركجرته مدوحان قابل السنة وكلية لفها مدوحان قابل السنة وكلية طلع أنت بدن هو بيزنس واي نقول بدك عليه زجارك أو إيجانا أنا السبتال هذا وحيف أنا لهاد أيقو لعق نورمال ومعقول وقفك جيكيس اللي قاعدايو قفك لو فيريو سنة حريص اللي قف كان لعق تول إيجاي سبتال waxa arkaysa lacag ugu soo dalacay markii aad tagtay markii hore oo lagu soo dhaweynaa kadib waxa lagu soo dalacay lacagana aqliga lahayn sababtoo anaga ka fooleys sbitaalada isku qiimo ah ogtahay magaalada sbitaalku ugu dhow dana ku sbitaalku ugu dhawaatay lacag waxa liis dheer lagu soo dawacay adoo saacadooyin 2 saacadood ama 3 saacadood وهذا جيفهم قال عايز تجيف قال له جاجريها ورابع لك قاتل ربا ومشان نيكا يقول لي بيزنس واي معام isbitaalada waxay kamid noqdeen ganacsiga caadiga oo furan laakiin looma baahna tirada isbitaalada ayagaas falisay suuqa iska bixinaya xamar waxa ku aali jiray iyadoo dhibaato intaan ka badan ay jirto dhowr isbitaal caafimaadka waa badnaay hadda isbitaalkan waa badan yahay bushigan waa badan yahay marka dabcan waxaan u arkaa mararka qaar marka tirada isbitaal tag wax $10 adoo lagu bixi karaa waxa lagu leeyahay $100 keen marka ganacsiga lagu hoos wataa isbitaalo kooban oo tayo la ka fiican isbitaalo tiro badan oo tayo leh markaas darteed haddii ganacsi u tahayna ganacsiga la u barakay hadday shaqo abuur oo maxay raadayay lacag ka sameynaan isbitaaladu waa badiseen qiimaha dhimo wax yar dadka maxay raadaa oo si dareemaynin maxay raadaa abixiyana oo adeeg fiican lagu qanacsan laakiin qof kasta shaatiga soo qaata hadduu yiraahdo maanta isbitaalan furana oo mid kale garab fura ayaga isfalusaya taas aan isleeyahay waa sax waa sababtoo isbitaal walba u furna waa nin walba wuxuu leeyahay hebel waa ka aqoon badan tahay waa ka soo jiidasho badan tahay laakiin waxa la rabaa isbitaal yar oo la qiimo fiican adeeg fiican bixiyo oo dadkana maxay yiraahdaan ay ku qanacsan yihiin in la sameeyo magu isbitaaladan sida dabakaayada la iska furay dabakaayo camal waa hadda magaalada xamar dabakooyin ku yaala isbitaalada ku yaala waa isleegihiin marka in laga dhiga meesha suuq yahay lagu gado waa laga fiican isbitaalada kooban tayo fiican leh raqiis in la keena waa loo hab waa loo xanuun ma bajiraba dadkaas iska aaminay qofku wuxuu aaminay waa isbitaalkaas loo xayisina qof ka imaado ku caafimaada adna bogto isleeyahay marka waxa dadka anaga jiro isku abuurnay mooyana jirra ma jirto alxamdulillah waa caafimaad qabnaa waxa xanuun oo maanta Soomaaliya halis oo ka jira ma lahan marka cudurro soo rito dadka dil ma lahan kansarka waa jira marka shacabku waxa leenahay quraanka saara daawada xabasowdada iyo daawaadka isku daaweeyo shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah